markii ugu horeysay taariikhda waxa magaalada Berbera lagu sameeyay gaari yar oo loo yaqaan Fitista ama baraaxada oo la saddex shid taasi oo uu sameeyay geerishka sameynta gaadiidka ee Mahad Qoofal hadaba Fitistani ayaa markii ay ka soo baxday geerishkaasi lana dhexmariyay suuqyada kala duwan ee magaalada Berbera waxay soo jiiday shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera iyagoo dhalinyaradu sawiranta ka qaadan ay dhigayaan baraha bulshada kadib telefishinka Star waxa uu xog waran u doonay geerishka sameynta gaadiidka ee Mahad Qoofal waxaana waraysi la yeelanay maamulaha geerishkaasi Mahad Qoofal oo warbixin naga siiyay xilligii uu fikirkan ku dhashay iyo tacabkii galay gaariga yar ee saddexda shid iyadoo inta badan fitisyada noocan iyo kala ah ay naqaan inay leeyihiin laba shid oo kaliya halkan waxaanu sameynay gaari saddex daaqadood ah oo aad arkaysaan oo fitisa daaqad siyaadaan ku kordhinay alxamdulillah rabbil caalamiin waa mid ilaahay loogu mahadnaqo annagoon qalab iyo waxaana jirno qalabkaygu wax yar fudud iska yahay ayaanu ka sameynay haddii aanu qalab badan hayn lahayn maanta alxamdulillah rabbil caalamiin qaar ka wanaagsan baan sameyn lahayn iminka waxa noogu jira qorshaha inaanu sameyno fitis dameer qadiyo lagu rakibay mid afar daaqadood iyadoo kala insha Allah bilaakan hawshu waa sii wadana laakiin waxaan jecelahay in dawladdu naga caawiso xagga qalabka qaybta Berbera waxaan ka codsanay gudoomiyaha Cabdishakuur Maxamuud Xasan inuu naga caawiyo qayb geerish weyn oo meel banaan waasac waxaan ku shaqeynaa waa halka yarada keesa boardka ma u badno wax way gabigeedu 12 mitir waana wajahad laamidu ku dhow yahay awoogay qof Cali ka soo hadhay waa de aakhir dunya lagu jirnaas waqtigan cimrigeyguna yahay 48 sano waxaan jecelahay insha Allah billahi kariim in dawladdu naga caawiso xagga qalabka wax toosinta ee wax lagu qabto amba biraha lagu laabo amba biraha lagu sameeyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gaarigan fikirkiisu wuxuu ku dhashay adigu muddo 3 bilood ka hor ah waxaan ku soo dhex jiray birta adigu dhowr iyo 30 sano ayaan ku soo dhex jiray haddii la hiro kuwa ku wanaagsan afar daaqadood leh qaar buurida mar qadiis saaran yahay insha Allah waa nagu tala jireen soo saarnaa haddii la hiro Star TV Berbera